ورحمة الله وبركاته. دمان مدحدا وينها صوت دمان لو بالفرام سنتر اللي يرتا أرضدا يدمان يجي صحافة يدمان دوينها كسوق كله وحيدكم السلام يا سنة الإسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد السلام ما أنتوا تاريخ وتهاي سجال سديدي بشي كوبات لبكون يا أفريقيا طبعا وحنو هالك كوبدوني أجاب فربضان أو يسوق كمبيوتر لابتوبيو البرنتر يا أجاب فربضان أن أجاب كاس ونقصو قاري جالية دهير أوضل كل رقم تلك سويسرلاند وركها طبعا جعلنا إنه حنو جعلنا هاي إنه هالك نقول ما هاد عرنا ما هاد أدو بلادن ururka daryeel oo aad uga qayb qaatay inay macnaha hawl badan galiyay inay na soo gaadho ayabkan aad ka faraha badan leh kaasoo aan ugu talagalnay si aan wax ugu barno dhalinyarta wax ka barato kasoo Soomaaliland Film Center waxaan si gaar ah ugu mahadnaqaynaa gudida ururkaasi oo kala ah Axmed Yaasiin Samatar Xasan Aadan iyo Cabdi Khadar dhamaantood iyo inta kale qayb qaadatay waxaan leenahay Ilaahay ku jisaysiyo miisaanka xasanaadkana Allah idinku daro hadaan yar ku noqdo ururka Sawd waxa la yiraahdaa Soomaaliland Film Center kani wuxuu ka dhisay gobolkan Awdal gaar ahaan magaalada Boorama aynu joogno waxyaabo badan ayuu qabtaa oo ay kamid tahay inaan siiyo tababaro dumarka sida cunto karinta farshaxanka iyo waxyaabo fara badan oo ay sheegi doonaan xawo roble marka anu waxaan kan aad ugu mahad celinayaa jecelahay ururkaasi inuu soo deeqay qalabkan anu mahad celiyo ururka daryeel wixii dhiban waxa ku dari doonto way xawo roble ilaahay ba horta mahad iskale maanta isugu keenay madashan nagu guddoonsiinayo qalabka ay soo direen jahliyada Switzerland qalabkaas oo sidoo inaan ku sheegay kombiyuutarro lab maxay kooban interno iyo maxay qalab isku dheelitiran ah qalabkaasi waa qalab xafiis oo isku dheelitiran waxaana loogu talagalay inaanu hadaan nahay ururka Sawd aanu sii qaybina annakuna oo nu gaarsiino meelaha baahiyaadka looga qabo hadii Ilaahay yiraahdo ururka Sawd ma taagna oo wax qaybin iyo maxaan ku dhahday qalabkan baahintiisa wuxuu taagan yahay ururka Sawd inuu jahliga ka saaro haweenka Soomaaliland gaar ahaan gobolka Awdal oo ay baraan maadadoodba ilaa quraanka kariimka ah iyo cunto karinta farshaxanka hidaha iyo dhaqanka dhammaan dawaarka intaaba ay baraan ururka Sawd wuxuu soo shaqeynayay muddo aad u dheer imika ahaan wuxuu haday saldhigiisu iyo gobolka Awdal waxaana lagu tababaraa maxay dugsi baa u furan halkan waxaan ku daraynaa tababarkaygii hore qaybta kombiyuutarka oo iyagana daayirtu ay ka faa'iideysan doontaan waxaan halkan salaanaya mahadnaq ballaaran aad iyo aad uga jeedinayaa jahliyadaha ku nool Switzerland gaar ahaan waxaan leeyahay miisaanka xasanaadka Allah idinku daro sidaad noo soo gaarsiiseen baan anaguna waajibkeega u gudanayna hana u maleynina hawshan oo kaliya inaan ku koobanahay waxyaabaha aan qabano waana ka idin soo sheegnay ilaahay hadduu yiraahdana waxaan doonaynaa inaad naga soo gacan qabataan qalabka farshaxanka lagu sameeyo iyo qalabka cunto karinta lagu sameeyo kulay maxay deeqiinu inta ku koobnaan maayaan nin walba dalkiisa isaga u maqan dadka ay sugayeen daayirta gobolka Awdal maqan baalad kamid tihiin aad iyo aad baan u mahadsantihiin boqolkiiba boqol waan idinku mahadnaqaynaa dalka idin mahadnaqayo dadka idin mahadnaqaya wassalaamu calaykum waraxmatullaahi soo gaarsiiyay ee ugu deeqay walaaluhu annaguna si fiican ayaan u gaarsiinayna hadii Ilaahay raali ka noqdo waxaan leenahay jazakallahu khayr wax qabadka iyaga iyo hawsha ay ururkan Sawd u qabtana in badanna waa la arkay hadii Ilaahay yiraahdo waan jecelnahay inaan ugu tabarrucno oo dadka iyaga wax u la qabano wassalaamu